السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى الهانتين بداود يا الملك الصان قضا ونيسان كسر هذا برنامج كني قارك هاي مرتي مدال وآل أبو يدرس عسيو أنا قاه ناصر عبد الله قبيل ناصر كيد برنامج كنا وحن كسر قانون مانتا حكمة إياه هالكلية لقيدي أريمها تعالك يضمرك الداو شحبون تعالكو قلبي قبل وحى كوي هاي سيدلول كتشرب بدوين وحنا صوص صارن كلا أو كلياته nin dabaasha xariif ku ah gabadhu marka ay yar tahay afkeeda waxa uu isticmaashaa dhokasho laakiin marka weynaato xanta gabadh qurux badani waa sida caleen oo mar kasta waa ay buuxdaa jacaylka gabadhu waxa uu galaa jeebka halka jacaylka ninka uu galo caloosha gabadhii labadooda jeclaata way khiyaamaysaa labadaba nin wax jecel waa indho leh balse gabadh wax jecel il kaliya ay leedahay oo ta kale ayay wax ku aragtaa gabadha guurka hortii ninka waxay u taqaanaa inuu yahay halyey balse guurka dibadii waxay u aqoonstaa inuu yahay maxbuus gacanta ugu jira gabadha quruxdeedu waxay daa'imtaa oo kaliya waa inta ninka uu jecel yahay gabadhu si kastoo ay jaahil uga tahay aqoonta marka ay noqoto arrimaha jacaylka waxa hubaal ah in aqoonyahan kasta iyo caalim kasta oo nin ah ay uga aqoon badan tahay ma jiro qof gabadha ka nafurid badan marka ay noqoto jacaylka ilmada haweenku waa sida duufaanka qarqiya qof kasta oo dabaasha xariif ku ah guri bilaa gabadh ahi waa jid bilaa ruux ah hadii ay gabadhu cod ka dibciso hoosna u dhigto hadalka waxa jira waxay ka doonayso balse ha ku daalin inaad siiso shayga waayo waxa hubaal ah inaanay ka qaadan doonin dumarku jacaylka waxa uu yaqaaniin shucuur iyo dareen qalbiga ah halka rag uga yaqaanaan hawl iyo dib suurtagal maaha in jacayl dhex maro wiil iyo gabadh hadii se uu dhex maro dhaqso ay isugu bedelaa jacayl dhulka oo dhami kuma wada haboona beerashada saa daraadeed dumarka oo dhanna kuma wada haboona jacayl la jilida jacaylka aad u qabto gabadh hadii uu yahay mid ka duwaya daacad leh waa inaad ka kaaftoontaa erayga jacayl macnihiisu waa dareen iyo shucuur dhab ah oo aan la taaban karin sharti maaha in labada qof ee isjeceli ay isku aragti noqdaan wax kasta tusaale ahaan isku dabeecad isku dherer isku midab isku hanti iyo isku fikir khasab maaha in jacaylka guur ka horeeyo guurka ayaa jacayl dhala ama jacaylka ayaa guur dhala jacaylku waxa uu qariyaa qaybo badan oo ka mid ah ceebaha qofka la jecel yahay raggu badanaa iyaga ayaa ka dalbada dumarka inay garab istaagaan gabadhu waxay ragga ka basataa kufaanista guulaha ay soo hoyso ee nolosheeda ninku waxa uu baahan yahay dareen iyo dabacsanaan uu kala kulmo gabadha halka ay gabadhuna u baahan tahay in marba baahideeda sida ay tahay loogu aqbalo farxadda ninku waa inuu helo ama ku guuleysto shaqadiisa laakiin farxadda gabadhu waa in ay ku guuleysato shaqadeeda barnaamijka intaas ayaan ku soo afbeerinaa intaynu isugu iman doono qaybtiisa labaad waa Naasir Keyd oo idin leh lama kala xanaaqo tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.